garabka haweenka ee xisbiga kulmiye oo hogaaminayso marwada musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Sahra Cabdilaahi Cabsiye ayaa soo kormeeray deegaano ka tirsan gobolka Saaxil ee ku teedsan wadada isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa. intaasi kadib waxa ay soo gaadheen xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera. sidoo kale waxay soo indheeyeen goobaha ay ka socoto qaadashada kaarka codbixintu waxayna ugu baaqeen dadweynaha ku dhaqan gobolka Saaxil inay qaataan kaarka codbixinta si ay u bixiyaan codkooda. maanta waxa nooga timi wafdi baa nooga timi Hargeysa garabkii haweenka ee xisbiga kulmiye iyo madaxdii heer qaran ee xisbiga kulmiye waxaan leenahay soo dhawaado gobolkiina Saaxil ku soo dhawaado wafdida waxay noo daadihinaysaa marwadii qaranka insha Allah bidmillah karin mustaqbalka dhow maanta ma intii mustaqbalka dhow ayaa noo daadihinaysa wafdida waxa wafdidaasi u yimaadeen Sahra Cabdilaahi Cabsiye wafdidu waxay inoogu timi ama inoo soo boqotay inaynu kaararka qaadano oo dadkeena gobolka Saaxil dhamaantood laakiin xildhibaanadii iska soo sharaxayay golaha deegaanka iyo baarlamaanka kaarkaas la idinku codeynaya waa in dadkii sida markii horeba soo gurtaan 80kii codna waa inaynan maanta hoos uga dhicin reer Saaxil meel kasta joogtaan waxa idinku boorinayaa inaynan 80kii oo maanta isku soo raacay 50 dumara iyo 20 gaari ma sha Allah baan leenahay anigu yididiiladaas aban ku imi wali dawaa waqtino ismaan cadayne laakiin maanta is cadeeyayo hablahaas ay soo jiito idin ka mid baan waxaan leeyahay gobolka Saaxil waynu sogayn reer Saaxil oo waynu sogayn inagu waxa weeyaan dadka bilaadmigu waa inay cadoodaan ciilqabayaal manihin waxa weeyaan yaan dooranaa meesha kuma jirto cid aynu dooranayna way inoo muuqataa waxa weeyaan kaarka inaynu qaadano kaarkaasi maaha kaar maanta madaxweynaha oo kaliya lagu dooranayo waxa lagu dooran doonaa xildhibaanadiina golaha baarlamaanka ee soo socda waxa lagu dooran doonaa xildhibaanadiina golaha deegaanka ee soo socda waxaan aad u salaamayaa haweenka gobolka Saaxil ee sida wanaagsan noo soo dhaweeyay maanta waxaanu ka soo anbabaxnay magaalada Hargeysa iyadoo hormood noo tahay marwada qaranka ee labaad ee mustaqbalka dhow Sahra Cabdilaahi Cabsiye ay hogaaminayso iyo wafdi ballaaran oo la socda ayaan ku nimid hawshaan u nimina waxay ahayd inaanu kala qayb galno sidii kaarka loo qaadan lahaa hawl culus bayna soo gaadhay markii hore sidii warqad yareed ee laysu diiwaan gelinayay imikana waxaynu qaadanaynaa waa kaarkii lagu codayn lahaa qof walba cid alla cid uu doonayo ayuu u codaynayaa reer Saaxil waxaan leeyahay iyo maxay hayday reer awdalba inay kaarka qaataan oo ay soo saaraan cid ay doonayaan annaguna waxaanu diyaar u nahay gobolka Saaxil maadaama aanu haweenkii gobolka Saaxil nahay inaanu hiil iyo hooba kala qayb galno gobolka Saaxil sida ay diiwaan gelinta kaarka u qaadan lahaayeen maanta waxaan joognaa waxaan soo marnay ilaa gobolkii Hargeysa ilaa iyo Berbera waxaan ku soo galnay goob walba waan soo istaagnay habsamida uu u socdo diiwaan gelintu u socoto ee reer Saaxil heeganka ugu yihiin ee ay u hormoodka u yihiin in ay tiradii ay hore u soo saareen aanay maanta dib uga dhicin aad iyo aad baan u boorinaynaa kuyugiyada dhaadheer iyo qoraxda ay taagan yihiin waa waxay gobolkooda ugu hiilinayaan gobolkooda ay ugu hiilinayaan waxaan leeyahay reer Saaxil ujeedadu ma aha in qof la dooranayo oo kaliya kaarkan marka ugu horeyso gobolkeenu ugu hiilinayna waa in gobolkaagu helaa adeega gobolada kala helaan oo uu noqdaa gobol bulshadiisu ku filan tahay halkan waxaan u nimay inaan walaalahayaga reer Saaxil baraarujino in ay qaataan kaarka inay walaalahayo fahmaan qiimaha uu kaarku leeyahay kaarku waxa weeyaan kii barito adigu ku dooran lahayd mustaqbalkaaga madaxweyne insha Allah bidmillah alkareem waadkii aad oran lahayd codkaaga ma doonaysid hadhow toole in aad tiraahdo meel aanan doonin buu igaga dhacay hadaad kaarka haysato ayuun baad dooran kartaa qofka dookhaagu doonayo qofka isleeday danba dalka iyo dadkaba ugu jira waxaan rajaynayaa bidmillah alkareem in walaalaha iyo reer Saaxil miyi iyo magaalaba in ay diyaar garoobaan in ay doortaan insha Allah bidmillah alkareem waxaan ka hadlayaa maxay hatay dadkii gobolka Saaxil ee Hargeysa iyo Berbera laga soo raray halkan la keenay waxaan idin sheegayaa hadaa inta ku qaadan weydaan kaararka kaarkiina uu gubanayaa Cabdirashiid Maarag Cabdi Cabdirashiid Sool Somali Cable TV Berbera